waan idin salaamay sheekadii muqdisho hargeysa sootii inaga dhamaatay meel kasta adiga soo weydiiseen sheekadii sootii dhamaatay sheekadii waxay saddex geesood gabadh baa wiil jeclaatay gabadhii wiilkii wuxuu noqday wiil taariikada lagu dhajistay oo mar hore meel laga cashuuray oo nin xaaslo noqday gabadhiisii iyo caruurtiisii baa soo baxay dawataas sababta ay wiilkii gabadh meel wada deganaan weyna ka sheegno waxaan dhahnay khalad isagu galay markii dambe gurigooda tibina aabaheedii dhaanaga gabadheedu meelna uma socoto aabaheed ma ka runbay hadoo jacaylka uu qabay dartii buu rabay inay gabadhiisu ka fogaan ma dharbaaxadii gabadhiisa lagu dhaftay buu intan oo dhan u mariyay ninkan oo ku xanuujinayay oo wuxuu tusayay macnaha isaga haday raqiis la tahay in isaga agtiisa qaali ka tahay taa ma fasiri karno haddaynu haddaba ka daba tagno wax kale inoo maharsanada jacaylkiisaas aynu ku ogaanay macnaha reer maxamed mustaqbalkii dambe maxay muteen taa haddaad u jeedaan waan idinka dabageynaya okay maxamed muna saynu muna anigu waa inantii anigu aan shaqada ku dhacday lucky gurigeediiba ka soo laabtay caruurtii markii odayga iska ladnaaday ugu dambeyntii maxamed wuxuu go'aansaday wadanka inuu ka tago hooyadii aabihii wuxuu ku dhahay companyga managerkiisa mukhtaar baan ka dhigay wiil isaga ka weyn waana kala wada habeeyay shaqaalii wax kasta dhag baan ka dhigay aabo adiguna weli ma dhul dhicin oo nin soconayo xoogaato waad la maamuli kartaa anigu waan nacay magaalada waxaan rabaa inaan iskaga baxo oo aan wadan banaanka u baxo fiisi waxaasna waan xariistay waxba ii dhowdhow hooyadii aabihii raali kuma inuu ka tago waxa jira ubadka mid ka mid waalidku ay ku dhagaan oo ma dartay ama naxariis ay ka arkeen ha ahaado ama jacayl ay qabaan marka waxay dhaheen hanaga tagin waa kan adigu wuxuu dhahay hooyo ya aabo wadeecana ilaahay idin ma keeno awlaadina bay idin hareera taagan wadna anigu ma baajin karo laakiin magaalada ma rabi inaan sii joogo lucky bay la soo hadleen lucky bay arinta u sheegeen inaan raali ka ahayn inuu tago balna isku dayday inay celin karto way la hadashay adigu iswaal badan ka dib iyo sheeko dheer ka dib wuxuu hadalkii marmarsiinyo ka dhigtay oo islaama suuroobayso haddaad magaalada adigu ku soo noqoto adigu maca awlaadda kama hadlay buura adiga haddaad magaalada ku soo noqoto ila deganaanayso waan joogayaa laakiin haddaad adiguna halkaas kaga maqnaanaysa aniguna halkan ma inaan iska baxan door biday laakiin marka aabaheed bay sheekadii la wadaagtay waxa ku dhacday aabo maxamed sidaas uu dhahay wadanka inuu ka tago rabo hooyadii aabihina way ooyayaan waxay dhaheen inuu naga taga ma rabno isagana wuxuu reason ka dhigtay haddaan reasonka kulan ku joogi karo waxba inaad adigu magaalada kusoo noqoto oo aan adiga ila noolaato bal aaba sheekadaas aad u aragtaa waa jimce subaxnimadiisii uu ka aamusay marka mula hadal way iska baxeen isaga iyo ciyaalkii yaraa jimcihii uu gaxeeyay marka jimcihii laga soo laabtay jimcihii baa laga soo laabtay maamadii iyada dhashay baa ciyaalkii u yeedhay islaamu waa khatar xaliga xidhaan moogta because waxay ogtay ciyaalka sida uu jecel yahay waxay ku dhahday caawa marka aynu cashada u fadhiisano awowgii ku ooya soo ma rabtaan hooyadiina aabihina meel isugu tagaan haa ku dhaha awowo noo ogolo hooyadaya in la raacdo hooyadaya aabahay aanu meel wada noolaano hayay dhaheen oo ciyaal ayay korisay moogtahay markii uu yimi fiidkii oo meelba reerku wada cashayaa wiilashii iyo wixii bay soo wada yimaadeen baa ciyaalkii dhadina oo waxaan kaa barna mana siinaysa wuxuu awo maxaa dhacay intaan noolahay haa waxay dhaheen awo waxaan rabnaa inaan anaga iyo hooyaday tagno muqdisho aan aabahay la noolaan aabo noo ogolo waa lagu ooyay waa iska beerum si kastoo isu adkeeya aabuhu waa beerum isna wuu iska ooyay wuxuu dhahay mar haddaad sida awow garateen waan idin siinayaa waxay dhaheen awow adigana kumaanacin ka weynaysa waxaa u dhaha waan in adiga kula joogo aan kula shaqeeyo markaad weynaato adigoo kala noqdaan rabaa waaba u rool modelkiisa adigu waa marxaasil dadkii intii kalena hareerahay ka galan waxay dhaheen wiilashii iyo maamadii iyo waxay dhaheen waa runtooda carruurtaa yar waxay garataad garan weyday iska sii daa qalbiga ka sii daa gabadhii mar haddii ninkiiba imika mar ay wadankii inuu carruurtaa yar aabahood dartood inuu wadankii uga tago inaga sii daa reerkaas inantaa calafkeediiba halkaa galaya caloosha ka sii daa ugu dambeyntii adigu wuxuu dhahay waan ku fasaxay aabo qalbiyan baan ku fasaxay iska tag laakiin intaana tagin u yeedh ninkii ku qabay inaan wada hadalaa rabaa soo way la hadashay arrintii way u sheegtay waxaa ku dhahda aabbaa laakiin ku raba wuu yimi soo duulay magaalada hargeysa yimi wuxuu ku dhahay dhageyso inantii hooyadeed 35 sanadood baan qabaa waxaaskiisan imaamada uu qabay 35 jir weeye wiilka carruurteeda ugu weynay 35 sanadood habeen gurigeyga kama idudin hal habeen gurigeyga kama idudin
habeenna maan dhirbaaxay iska daaya gacantaydoo gaadhee xataa buuda dadku isku dhahaan caybaa ugu yara ma ku dhihin hadal qalleefsan weligay kuma dhihin intaasoo awlaada ii dhashay ma waxay kula tahay inay intaasoo awlaada dhib la-aan iigu dhashay maya laakiin inantayda haddaanad qabi karaynin oo aad aragto inaanay gabadhaadii ahayn oo aad khalad ka aragto taleefon keliya ii soo dir gabadhaadii soo doonadhe xataa ii keen ku odhan anaa barti joogto ugu imanayo kaasoo kaxaysanay laakiin gabadheeda ma rabi inay hadal xun iyo murugo inta dunida ku nooshay dareento hana iga dilin hana iga dhibaataynin sidaan kuu siiyey u qab haddaad hayn kari weydo anaa kaasoo kaxaysanay aniga isoogeysay maxamed wuxuu dhahay taas waa ballan khaladkan maanta dee dhacayna 7 sannadood baan ciqaabtiisii mar dharbaaxadii maalintaa dhacday lagamana yaabo dib ugu dambaysa inuu dhacdo dee gabadhaa weyna wax baratay cilmi iyo maadiba telefoon bay haysataa hadda dhibaato aragta iyadaaba kula soo hadlaysa so anigana waa iga ballanaabo ilaa ku sharfo sidii baa lagu wuxuu laakiin dhahay anigii iyadu waxaan u soconay cimro lakii aabaheed cimro isu raacayeen oo mar horena isu raaceen marka wuxuu dhahay adiguna baasaboorkaaga haddaad sidata waxaan jeclaan lahaa inaad madarta cimradaan kala qayb qaadato aan halkan kaaga dalbo halkii baa looga dalbay reerkoodina wuu u sheegay cimray isu raaceen saddexdoodii way soo laabteen magaalada hargeysa kusoo laabteen cimrada markay soo dhamaysteen kadibna caruurtii iyo gabadhii iyo wixiiba sidaasa lagu ambabixiyey wixii la raacinayay dee waa taqaan gabadha meel ka tegaysa waa la raaciyey dee sala allahu baarik reerkii sidii bay ku nabadgaleen muqdishay ku degayeen 2 ubad oo dambe gabdhaaba u dhashay dee weydinkaas sheekada halkaasi kusoo gabagabowday waa kaas iisoo dhawaada madaxan baaguudi ku gurtay ama roori ma soo taqaan hayla yaabna dhaka weynaanteeda muunad aad iisoo weydiinaysa waan idin arkayay hablo badan luuqa iga soo weydiin hablo kamidana commentigan ku arkay muuna maxaa u dambeeyay muuna waxa aad gabadhi qisada ku dhacday gabadhan saaxiibnahay reer muqdisho reer hawl wadaaga qisadani qiso kale ay sii xasuusisay oo maanta kaga sheekeynay live-kaygan ubax uga sheekeynay macnaha muuna waxay iska jeclaatay nin qurux badan oo ixtiraam badan oo wanaagsan laakiin dabada wuxuu ku hayaa aanay war u hayn sababtoo tahay ninkii wuxuu noqday markay is wada siisay wuxuu noqday nin reer iyo xaas iyo caruur leh oo weliba aan rabin xaaskiisa inuu la labeeyo ragga qaar ba iyagoo 2 iyo 3 ba haysta raba inay gabadh kale guursadaan laakiin inaan indhihiisu bicid kale arkin gabadhaas oo qura arkaya so mararka qaar dabada meelahan dhow kaga dabaalo ya cambar careysta iyuunbay biyuu ma jirta galabtii oo kale maray dib u noqdaan ma ogtahay waxaad sarka adigoo badwey taagan dabaalna ma taqaanid gooray kula durkeen because markay dib u noqonayaan biyuu siiro macaan bay kugu qaxaynayaan ma dareemaysid istaag markaad istiraahdo bad deg adigad hadana dabaal qon halis baatay muuna taasoo kala ku dhacday waxay sartay iyadoo badwey taagan qisada ay xasuusan galabta live-kayga ka sheekeynay waxa kamid ah nin buug baan bari waxaan ka akristay nin ayaa dalxiis tagay gabadhna meeshii dalxiiska isku barteen gabadh aad u qurux badan aad u ixtiraam badan gabadhiibu iska jeclaada dhowrkii cashay meeshii la wada joogay waxaan kugu wuri ninkii sanbaatiyu ka diyaarsaday kaale iska arag maxay kugu taala waa la waswaraystay xageed ka timi magaalo Hibblanka iyo halkeed ka sii deganta xaafadda isagu wuxuu u sheegay ilaa adreeskiisii iyadu waxay u sheegtay ilaa ay xaafadeeda degnad ilaa adreeskeedii gabadhan iyadu walaalnimo bay meesha ka ahaydee maalinkii la kala amba baxayo inbuu sheeka jacayl oo soo bandhigtay war waa la qaba un bay ku timir waan ahaanigu dabeetana magaaladii ay deganeed nin gaangistiro degan buu soo raadiyo ninkii buu soo helay wuxuu dhahay guriga caynkaas raadi ninkii gurigii buu soo helay wuxuu dhahay korka kala soco cidda ku nool baan rabay inaad ogaato nin iyo gabadh baa ku nool ninkii gaangistirka wuxuu dhahay nacam nin iyo gabadh baa ku nool wuxuu dhahay lacagtaasan kuu soo diray inta hore inta dambana markaad fulka samaysid dilkan kuu soo diray ninka diloo ka dhamee wuxuu markaa qiyaastay hadduu ninku dhinto aad adigu u tagto aadaad guursanay daaqadu ka soo galay habeenkii dambe muddo daba socdo guriga wuu ilaalinayay si halku ka gali karo wixii oo dhan habeenkii dambe daaqada ka soo galay ninkii oo gabadhina ay yar seexatay ninkina uu computer ku garaacanay waraaquhu berri ku shaqo tagi lahaa deetana daaqada markuu ka soo galay ninkii toogtay xabadii ku kacday gabadhina albaabkii ka soo booday qolka tii oo qeylisa iyadina madaxu ka toogtay labadiiba waa dilay ninkii buu la hadlay wuxuu ku dhahay shaqadii waan kuu soo dhamay lacagta intii kale ay soo shub wuxuu wax cidimiyay ku aragtay wuxuu gabadhiisii xaaskiisa qolka soo baxdo iyadana waa ku diro waan toogtay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ma gabadhii dhamaydee aan darteed dhibtan u maray ma dhimatuu dhahay dee waayo haddii kale ay aragtay buu way sheegi lahayd oo dilaabaanay anigu markhaatay igu furlayd markaa waan diluudha iyadana ka warwarin cidna arkiisay ma la buu yidhi tiiba i xasuusisay muuni macnaha waxay iska jeclaatay qof aan ahayn isagii marka amar xaasil muuna maxaa u dambeeyey muuna rafaad badan baan maray tiri
marka kood waxay dhaawacay gabadhiyo reerkoo dhamiba ay maskaxda ka haysato oo amaanteed ay ku celcelinayaan iyo way wanaagsan tahay mar kalena ninkii oo aan cid kaleba u jeedin mar saddexaad waxay tiri anigu muuna ahaan nin naag la weligin niyadeeda kuma qabsan waad guursanaysa iyo jacayl baa idin dhex mari doontoona soo taasna aad baan uga qalbi jabay jacaylkii oo isna i haleelay waxay tiri xataa jaamacadaydii baan gabay xanuun baan soo maray badan inaan qolka ku ururo ugu dambeyntii laakiin waan ka tashaday waxaan nafteeda ku qanciyay muunay miyaad rabteen nin naag la inaad xaas u noqoto maya soo mar haddaana taa rabin iska jab haddaba boorka marka muuna 2024 imkayna dhaafay horraantiisii waxaa dubay ka yimi wiil eedadeed dhashay oo guriga abtigii kusoo degay aabaheed wiilkii bay iska heleen wiilkii baa guursaday dubay bay degan tahay hadda uurkii u horeeyay leedahay sheekadeedu markaa muuna saasay ku dhamaatay laakiin rafaad way soo martay soo wax iska qurux badan oo meel iska taagan weligaa ha iska caashaqin ilaa ayaad waxa dabadiisa soo ogaatay maxaa ka dambayn doona aad baan idin salaamay